السلام عليكم ورحمة الله. marka lagu soo dhawaado channelkayga videogi ugu horeeyay ayaa soo dhiganaa waqti badan gadaasheed sababtoo dhawaanahan waxaa sameyn jiray live video mataqaana live gaas YouTube kusoo gali jiray dadka ayaa mataqaana live ula hadli jiray marka sidaas oo videoyadana badnaan jireen laakiin dadku way qaaliyeen oo hadhow live ka doona dhaaf meelaha ka daawana ma arkeeno video markaa soo dhigto dheeray live ka hal saacadood waa marka videoyada aniga gabnaa noogu soo celin okay waa soo laawanay su-aasha mataqaana igu badbadata maalmahan mar walba la weydiinaya marka live soo gala xataa la weydiinayo waxaa waaye Herbalife inaan isticmaalaa rabaa Herbalife inaan isticmaalaa rabaa ma isku cateyn karaa Herbalife ma isku ceylin karaa Herbalife like maskaxdeeda ka badbadata laba su'aal like every single day aan maqlo waxaa waaye Herbalife iyo protein ma cabi karaan so marka maanta waxaa ka hadlaynaa Herbalife maxay tahay maxayna qofku wax u tartaa so hadda u guda galno dadka Herbalife yaqaano waxaa waaye waxyaalo ingredient badan la isku dardaray oo shake laga sameeyay soy protein canola oil waxyaalo badan aad ingredient badan la isku dardaray hadaa rabti inaa ogaatid Google ku qor maxaa la dhahaa ingredient wax laga sameeyay hadaa rabti inaa ogaatid Google ku qor adaa ogaanaysid so ani waxaa waaye inaa maanta sharxo marka ma isticmaali karaa yes waa isticmaali kartaa laakiin caafimaad ma taha ka horeyso like daroogo ma isticmaali karaa yes waa isticmaali kartaa laakiin ma wanaagsan tahay imaanaysa ma ogtahay khamri ma cabi karaa yes laakiin mataqaanaa diinta ma ogashaa caafimaadkaaga muxuu saasa laga hadlaa moogta wax qof bilaadan wax walba waa samayn kartaa laakiin waxaa mataqaanaa wixii markaa samaysid wixii kaaga soo bixi lahaa ay mataqaanaa jawaabta noqonaysaa so haddii oo mataqaanaa inaa Herbalife isticmaashi rabtid maalin ama habeen ama daqiiqad marna ma kugula taliya inaa isticmaashid kow horta bilaadanka ilaahay wuxuu jirkeenu abuuray waxaa waaye dheefshiidka maxaa loogu sameeyey haddii inaa wax la cabo mataqaanaa 3 bil 4 bil 5 bilood wax inaa cabtid aa ku noolaanaysa macquul tahay mataqaanaa ilaahay dheefshiid dhan kuu sameeyeen ilaa wuxuu ku dhihi okay whatever waa noolaan kartaa laakiin dheefshiida lagu sameeyey ilkaa lagu sameeyey goosaa lagu sameeyey miciyaa lagu sameeyey carabaa lagu sameeyey cuntada qaado candhuufa carabkaaga saaran ilaahay cilmiga ilaahay ka waran like process badanaa la sameeyey si mataqaanaa jirkaaga cunto uu helo aa wax shiidid cuntada jirkaaga wax shiida laakiin Herbalife opposite-keeda waaye midaas way kasoo horjeedaa waxaa lagu leeyahay wax cunoo dhan uma baahnid like subaxyaa soo kacee caagadaana qasane waa cabee duhurkiia la gaaraa caagad kala shiidana waa cabee 3 bil saasa ku noolaanaya markaa maqlaan madaxa qabsada horta dadka maxaa ka qaldanaa dhahay like how adoo mataqaanaa machine mataqaanaa jirkaa inuu wax cun loogu talagalay sidee ina ugu noolaato laga yaabaa wax la cabaayo maya kiilaa kaa dhacayso maya 8 kiilo iga dhacdo yes way kaa dhacay exactly maxay kaaga dhici waa silib ilaan cunto ma cuno sidee aan naftirkeeda soo xal markaa soo kaco dhaho okay oo maanta waxaa cabayaa hal kafee cabaaya duhurkii waxaa cabayaa mataqaanaa protein shake la qasa cabaaya yes hilib wuu iga dhacaa qasab waa ilaan haddaa cunto cuno hilib wuu kaa dhacaa waa sababta markay dadka hilibka iska yareenayaan kaloriga iskaga yaraya cuntada cunaa iskaga yaraya si hilib ugu dhaco so cunigi xal dhash xataa wuu ogyahay haddaa mataqaanaa hilib inaa iska ridi rabtid inaa cuntada iska yaraysataa so marka adi haddii maskaxdaada shaqeynaysa sidee nin $100 ama $50 ama $60 kaaga qaade caagad laqasaa uu kusiiyo ku dhahay okay caagadan bisha markay dhamaato bisha kale $50 ama $100 kale ii keen caagad kale laqasaa ku siinaa so hilib uu kaaga dhaco so marka maskaxda inaa shaqeysaa muhiim haddii aa aaminsan tahay dad badan aa aragtid oo before iyo after hilibaa iga dhacay yes hilib wuu dhacaa yes mataqaana waa catoowe laakiin hilibkaas ma kugu soo laabanaa mataqaana ma isweydiisa boqolkii hadda Google waxaa ku qortaa Herbalife review ku qor like 90% dadku waxay ku leeyihiin hilibka inta iga dhacday in lamid ay ugu soo laabato ama in ka badan why ilaa jirkeen cunto bartay haddii aa marka hilibka uga dhaco anoo wax cabaye wax mataqaanaa cunto markaa cuno exactly hilibka ugu soo laabanaa sax why sababta jirkeyga wixii uu bartuu hele haddaad su'aalkaaga soo qaado meelaha abaaraha ka dhacaan oo kale wadanka markuu abaar ka dhaco ama meel abaar ka dhacdo dadku way dhamaanayaan lafaa ka soo baxaya laakiin dhaqso haddee isla markiiba haddee cunto cunaan week 2 week dadka jirkooda soo noora oo soo qurxanaana why
because cunto heleen iidan uma baahno cilmi badan uma baahno qof mataqaana science iyo dhakhtar uma baahno waa iskaga jeedaa midda kale Herbalife wax laga sameeyay chemical badan ku jiro so chemicalkan jirkaaga wuxuu effect u leeyahay moogtahay wuxuu dhibaato u keenayo moogtahay no because ma akhrisid ileen hebela wuxuu ku dhahay mataqaana way fiican tahay mataqaana hilib igride like hebelkas daa weydiis ingredient ku jiro waxa ku jiro wax ma kaaga sheegi karo wuxuu ku soo arkay hebla ka aragtay laakiin dadka ma oga midda kale mataqaana hadhow marka training samee maagtid jirkaaga energy ma haysto training ku sameeyo jirkeena wuxuu u baahan yahay protein u baahan yahay carbohydrate u baahan yahay health fat u baahan yahay saddexaas dawaa jirkeena shooka ku dhacaya tusaale ahaan markii dadka low carb sameynaya hilibka iska ridayaan markii carbohydrate-kooda yareeyaan ama carbohydrate-ka hoos geeyaan why isbuucyada ugu horeysa qofka fatigue u dareema madax xanuun u dareema inay cusbo kaa maqanta u dareemaya because jirkaaga waxaas u baahan yihiin electrolyte waxa la jirka bini'aadamku u baahan yahay electrolyte waa mid ugu muhiimsan markii diet la sameeyo jirka bini'aadamka inuu helo electrolyte waxa magnesium maxaa la dhahaa sodium waxaas inaa heshida u baahan yahay jirkaaga so hadda intaas aadan haysanin ilan ingredientiga meesha ku qoran ma ku jiraan sidee marka lafaha u kobcayaan sidee lafaha xanuun u ilaalinaysaa sidee mataqaana calcium u baahan tahay jirka hadduu intaas haysanin ma kula tahay inuu mataqaana waxaas helaya laakiin fiber badanaa ka buuxo dadka say dhahan waaya dadka isticmaalo ilaan dadka wax ana hadda balod isticmaal ama sigaar cabo miga dhaadhicin karta sigaarka inuu xun yahay ilaan waxa cabo already waa ogahay inuu xun yahay waa ogahay laakiin jirkayga la qabsaday oo wanaagsan dadka Herbalife isticmaalan saas oo kale gabadha ila soo xiriirtay Instagram-ka waxaas gadgada Herbalife-ka Cabdiwahaab waxaa maqal dadka inaa Herbalife iska dhaaf adhay sida way wanaagsan tahay soo moogi dada hilibka ridaya saana u fiiri marka waxaa dhahay ingredient ku jira oo meesha ku jira weydiiyay wax ma iga sheegi kartaa exactly ma taqaani soo lacag daraadeed dadka riska u gelin hadda Soomaaliya iyo ma taqaana Kenya iyo Europe tan qaarkeedba dadka way xiisanayaan ilaan qof Soomaali u sheegay waxaan hilib kariyay ama qof kale ka maqlay so lacaga waxa dooranaysaa dadkan si riski ah u gelis ama caafimaadkooda dhibaato u keentay marka lacagta dhibaatada leedahay meesha gaarsiin karto so basically hadaa rabtid inaad wax isticmaashid please iska akhri waxaan at least qof cilmi oo la weydi at least weydi waxaan maxay dhibaato ay keenay maxaa riski ku jiro hadda Herbalife kan dadka badan ku isticmaala wax su'aalaha badan soo weydiinaya gabdho u badan yihiin walaalaha waxa laga dhaadhicay gabdhaha ma taqaana waxaan hadda isticmaashid dhaqso kaaga dhacayaan dhaqso soo dhimaanaysa horta mar inaa maskaxda u sheegtay la rabaa jirkan bini'aadamka ma taqaana waa wax machine oo ilaahay ma taqaana wax u naqshaday so haddii wix naqshadi loo sameeyo oo jirka cunto shiido dhaqdhaqaaq aad samaysid movement aad samaysid loogu talagalay hadda in opposite keeda samaysid aad isku dayid ogaa wax dhibaato ah qasab way kaaga imaanaysaa whether ay wanaagsan tahay ama xun tahay ama ay fiican tahay I don't know laakiin ma kugula taliyana inaad isticmaashid haddaa rabtid inaad hilib iska ridid take your time cunto wanaagsan soo gado cunto nadiifa cun waxyaalaha hilibka ku keena ogtahay iska jirtid carbohydrate-da xuna iska jirtid cunto wanaagsan cunto fruit cuntid midda kale like qofka ku marti qaaday ama walaasha la aroosay ama walaalka la aroosay ama aroosanay sorry xaflada laga marti qaaday walaasha isku jaamacad dhameynayso wixii cuntaa meesha la cunayaa inaa soo istaagtid ma caagad qabsanay maxaa sameynaysaa cunto ku soo no diet ku jiraan diet-kii waxa way Herbalife laha cunto dhan mi ogolo like nolosha sida strict ugu dhigay fiiri hadaas u fiiris dadku ma fikiraan mugtaa marka hilib inaad iska dirabtay degdeg ku daro oo degdeg na 5 kilo iska rida degdeg sa adduunka wax degdeg la ma jiro haddii degdeg wax ku dhacaya ma taqaana qof walba ma taqaana kulligeed 6 bag oo lahaan leen murqaheena banaanka ah lahayn degdeg desa soo jirlaan soo marka waxa ku dhigi lahaa waqtiga qaado sabar tareenay ma taqaana cunto fiican cun hilib iska reestan ma wax ma taqaana hal mar la sameeynayo laga tagay hilib iska reest caafimaadka guud ka taxadiraysa si bari ma taqaana adoo ma taqaana qof yare hilib badan ku saarneen oo caafimaadka risk diabetes waxa isku dhicin marka hilib marka iska reedaysid waxa ka fikirtaa goal hadafku weyn ma fahmay so waxa ku dhila marka wax intaan isticmaalin cilmi oo lahaa baro waxay yihiin channel ka daa ku cusubtaa waxa la sameeyaa taqaana like subscribe saxabta gaarsi peace out